kulanti wacan daawadayaal waa xalqad kale oo cusub oo teeni 12 oo aan kaga hadlayno barnaamijka adiga ayaa mudan ama waad u qalantaa oo ka baxa channelada TV-ga Baxarayn maantana waxaa marti ku ah qof da'yar. طلبنا من ضيف اليوم حضور اجتماع بالمجمع ولكن رتبنا له شيء أكبر. sidaad u jeedaan waxaa marti ku ah maanta wiilkan yar oo lagu magacaabo Badr Rays. waxaa la soo dhigay ishaaradii ama calaamadii ka digtoonaa meelahan geesiyaasha ayaa loogu talagalay. waxaa la soo wadaa boorsooyin ay sawiradiisii ay ka muuqdaan iyo sidoo kale erayo isaga lagu weyneynayo. marka la soo laabtay ayaa la yiri si uu arko Badr Rays ayaa ku qoran. الحين البالونات waad u jeedaan markana waxaa la keenay boofinadii sawiradiisii ay ku sawiran yihiin. داخل الحين عربات التسوق gawaaridii yaryaraha laabta lagu qaato waad u qalantaa ku qoran. البنات baanarkii weynaa la soo dejiyay. النداء. أعزائي الزوار، ننوه عن وجود بطل بيننا الآن، صغير بسنه لكنه كبير بعطائه. أسس مشروع الخاص. maanta waxaa marti ah Badr Rays oo isagu ah ayaa la yiri wiil yar balse wax bixintiisa ay weyn tahay. waxa uu aasaasay shirkad oo dhammaan wixii uu ka helay ugu deeqay kuwa caruurta iyagu cudurka kansarka qaba. ninkan waxa uu leeyahay waa nin wanaagsan, waa wiil fiican, awood leh, bini aadanimana leh. واحد من بنت اخواننا انه هو عاطفي حساس. gabadhan waa eedadiisa waxay leedahay waa wiil fiican oo bini aadanimo leh. wiilkaana waa walaalkiisii ka weyn oo waxa uu leeyahay waxa uu nooga duwan yahay astaamo gooni ayuu leeyahay wiilkeeni. بعض نلعب يا بعض كل شيء. بدر من صغرته وهو يحب يلبس البوتاي على طول يلبسه بمناسبة. Badr waxa uu mar walba u jeclaa yaraantiisa bootayga ama tayga in uu xirto kaasi uu mar walba u qaadan jiray. في 2015 2015 waxa uu go'aan ku gaaray in uu design gareeyo bootaygaasi عشان يحضر في عرس خاله. si uu uga qayb galo arooskii abtigiisii. بدأ يصمم تصاميم حق بوتايز. waxa uu sii go'aansaday in wax badan uu soo saaro uu sameeyo. اتذكر الله يرحمه ابوه waxaan xasuustaa geeridii aabihiisii wuxuu soo bandhigay dhowr bokis oo bootayskaas ah. انه هو يجمع كل التويز مالين رابعه ف فتجمع يعني كميه من التويز وتم waxa uu bilaabay in uu ganacsi uu ka sameeyo kuwaasi. 2016 waxa uu ka qayb qaatay bandhig caruurta ay soo bandhigayeen. فبدر ما شاء الله waxa uu iibiyay wax badan oo aanan malaynaynin in laga iibsan doono. احنا ما كنا متوقعين انه هو يبيع هالكميه من البوتايز. يوم كان عمره 12 سنة 12 sano marka uu jiray waxa uu soo booqday حق بدر حق xarunta Salmaaniya مرضى السرطان oo ay caruurta kansarka qabay ku jiraan. السلمانية الطبي. بنى علاقات حب معاهم. waxa uu la sameeyay saaxiibtinimo wanaagsan, waa uu la ciyaaray, waa uu caawiyay. waxa uu geeyay t-shirtiska ama taayada uu sameeyay. waxa laga arkayay indhahoodii farxadda ay qabaan. شاف المرضى بنفسه حس بدر أن عنده مسؤولية مجتمعية. markuu arkay indhahoodii farxadda ka muuqata waxa uu go'aansaday in mas'uuliyad weyn ay ilmahan ay ka saaran tahay. كثر جهودي لازم أبيع أزيد. طبعا اكبر شيء ان بدر واليهال سووه اللي هو المزاد. لما سوينا المزاد أنا ومحمد وبدر wiilkaana Badr ayuu la dhashay. سعادة
waxa uu sheegay in aan go'aansanay ayuu leeyahay in lacaga badan aan ka sameyno tan oo aan carruurtaas ugu deeqno 100 تيشيرت ويجمعوا مبلغ كبير كان فوق 13,000 دينار وتبرعوا بالريع كامل حق أطفال مرضى السرطان. توفى والد بدر وتوقف بدر عن كل أنشطة الخيرية الكبيرة. وايد السبورت من أبوه aabihiisu waxa uu ahaa qofkii taageerayay balse waa uu geeriyooday balse waxa uu go'aansaday in uu camalkaasi khayriga isaga uu sii wado بيكون معه وبيحققون له الأمنية اللي هو يبي يوصلها سواء حق أبوه ولا حق نفسه ولا حق أي أحد. هو مصدر إلهام لكثير ناس من جيله، وأنا كأب لابن صديق لبدر أثر في ابني كثير، ودائما ما يتكلم عن تجاربه وينظر يعني لبدر ninkan waxa uu saaxiib lahaa Badr aabihiis waxa uu ka sheekeynayaa sida wiilkan uu u noqday qof ku dayasho mudan oo aad looga sheekeeyo sida khibradiisa iyo waxa uu sameynayo علمتني شلون اسوي العمل خير وابيك ترجع اقوى وانا بكون معاك. بدر احنا عارفين انك سويت وايد اشياء اسعدت فيها الاخرين، حققت اماني الاخرين، احنا وايد فخورين فيك. ندري انك مستمر في اعمال الخير خارج نطاق المشروع، ولكن نتمنى انك ترجع بمشروعك والخير اللي يطلع منه، واحنا فخورين فيك. حبيبي بدر، هذه رسالة لك انك تستمر في عملك ويكون tani waa fariin aan kuu soo marsiinayno hawada in aad sii wada ganacsigaaga waa mid aabbahaada uu kaaga tagay waa inaad caawisaa dadka annagana kuugu garab istaagi doono كل شيء سويته في حياتك وانا دائما بكون معاك في اي شيء تسوي. أحبك وأفتخر فيك وأشوف فيك شيء بيمسح في قلوبنا كلنا. بتكبر وبتعرف أنت شنو حققت، بتعرف أن أنت أثرت في كل اللي حولك، بتعرف أن أنت سويت شيء وايد عود حق سنك. ما حد في عمرك بدر سوى اللي أنت سويته. ma jirta ay leedahay qof da'daada oo waxa sameeyay daawadayaal waxaad nala wadaagi kartaan aragtidiina muuqaalka ku saabsan waxa la gaaray xilligii la abaalmarin lahaa كنت مستانس أنا أشوف الناس اللي يدرون عني يحبون الشيء اللي أسويه. أخواني وايد أحبهم وايد هم سبورتيف لي. إن شاء الله أنا waxa uu yiri walaalahay iyo dadkayga waa kuwa igu garab istaagay in aan u wado arrimihii ka ganacsiga tayga taa oo dadkii aan ugu deeqay carruurta ka mid ahayeen بدر waad mudantahay ayaa la leeyahay qaybtii ugu dambeysay weeyaan بطلنا الصغير استمر بإنجازك وواصل بعمل الخير. ألهمتنا وساعدت الكثير وكلنا معاك بدر، أنت كفو. والحين صار دوركم، خلونا ندعم البطل بدر ونحط يدنا بيده عشان يوصل لهدف مشروعه عن طريق شراء منتجات المتوفرة على حسابه في الانستغرام.